بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشركii shanaad ee xarunta xaruur maanta casharkan waxaan ku eegayaa dabeecadaha dumarka Soomaaliyeed qaarkood gabadh baa jirtay Finland markaan muuqaal ka sameeyay dumarka aan idhaahdo tusaale kale gabadh baa telefoon ka dhex qaylineysay baska inteeda kale waxaan anigii iyada iyo ama saddex baan ku ahayn Soomaali inta kale waxay ahaayeen dad cadaan gabadh Soomaaliyeed kaliya ka dhex qaylineysay waa subax hore waa 8 waa 7 subax waa la sii shaqo tagayaa baska iyada ka dhex qaylinaysa iday la hadlaysa karmaysa ma ka tira war waa ceeb way waxaasi waa hadhow toolana waa layna qalaadinayaa ixtiraam ma jirto ay oran jirtay ragga maxaa uga hadli weysay marka waxaan ku oran jiray raggu iyo dumarku tartanku maaha waxan raggana waan ka hadlaa dhibaatadooda dumarkana waan ka hadlaa laakiin iyada waxay arkaysay aniga waxay dhageysataa dumar feminist ay dhageysataa oo qaarkood Mareykanka joogaan feministku islaamku ka soo horjeeda feministka communist shuucigana ka soo horjeeda communist ka soo horjeeda ama Finland ama Norway ama Denmark ama Sweden ama Ruushka ama Mareykanka ama Ingiriiska ama Jarmalka ama Ingiriiska communistku way ka soo horjeeda midigta Yurub oo dhan iyo waqooyiga Mareykanka way ka soo horjeeda feminist waxa kale oo ka soo horjeeda muxuu ahaay dumarka madow ee Mareykanka wax qora waayo xaqna kuma dhisna wuxuu ku dhisay cadaan dumar cadaanka inay ka sareeyaan guurkayna cib yihiin carruurtay ka soo horjeedaan waxay ogol yihiin in wax dabiici aan ahayn oo muxuu ahaay ay shaqayso marka waa laga soo horjeeda wax dad badan baa ka soo horjeeda oo kala duwan oo kuwii Ilaahay aaminsanaa iyo kuwii aan Ilaahay aaminsaneyn baa ka soo horjeeda feministka dumarka Soomaaliyeed waxa uu geysay jaahilnimo dumarka kale dhageystay feministka ay ku shaqeeyeen masaakiinta jaahiliinta kuwana laba jaahiliin bay ka tahay marka waan ka hadlay feministka wiki hore waan ka hadli doonaa mustaqbalka hadii la yiraahdo halkaas ku dhaafayga dabeecadda waxaan ka hadlayaa dumarka Soomaaliyeed qaarkood ay leeyihiin oo u baahan inay isbedelaan waayo bini aadanimo maaha waa sagaashameeyada horaanteedii waxa la soo socdaa dhoof baa loo soo socdaa waa Addis Ababa wala sugay dhoof baa loo sugayaa marka gabadh waxaa noo shaqaysa Maryam la yiraahdo waa Ramadaan Maryam waa Amhaarig waxa weeye waa qabiilkii haystay Itoobiya ugu yaraan 700 sano mise 1000 sano haystay Masiixiyiintu waa 5% Itoobiya 5% iyo muxuu ahaayay may 30% mise 30% waa Masiixiyiin 70% iyo 5% baa isku haysta 70 ka soo qaad waa muslimiin laakiin faa'iido ma leh waa jaahiliin la xukumo oramada iyo uraagada iyo amxaara muslimiin marka iyada waa amxaarada waa ururkii xukumayay wadanka inta soo qarni oo muslimiin laakiin muslim bay leeyihiin marka waa inaan akhlaaq mutaadibada akhlaaq fiican leh waa gabadh muslimada yani muslimka waa akhlaaq weeye moogti ma dharka umma marka way shaqaysanaysaa waa rabo ay Soomaaliya dumarka Soomaaliyeed ku dhaga hadlayaan dumarka Soomaaliyeed aan ka xumaadaan taasi waa taas waa 2014 waa Holland aroos waxaan tagay inaan abto ahay oo aqal galeysay marka Turkiga waxa iska leh hoolka ama gigida arooska lagu dhigay marka Paris baan loo soo dhigayaa gabadh marka Turkiga waa qoomiyadda labaad ee Holland ku dhalatay kuwa saddexaadna waa Marookaankan filaya ayaa gabadh qurux badan oo Soomaali oo ma sha Allah deedna ragga xaasas baa la wada leeyahay badankoodu hadda shukaansiga waa iska garaa rag saxbaadka dumarka iyo jacaylka iyo dumarka iyo rag waysi dumarku saaba ma filaya laakiin rug damac baa iska jira deedna gabadhii way la sheekaysteen gabadhii way fahantay ilmadii deedna marta muuman saawidiyaan kuuli ka waran ragga Soomaaliyeed dhaqanka Soomaaliyeed ka waran ku waxay ugu tiri dumarka Soomaaliyeed way xun yihiin anigu waxaan dadka wax sii wada aan halka ku harin waxaan ku waayo waxay ugu tiri way qaylo badan yihiin sabirna ma laha inta yadii rag meesha joogay oo kala daa
oo kala tababaran, qaar wax barteen, qaar waxba aan baran, qaar in dhexe barteen, waan isku wada raacnay taasi waa hubaal weeye. dumarka Soomaaliyeed qaylo badan yihiin, inaanay sabir lahayn badankood oo la isku raac. waxay tiri ragga Soomaaliyeed baan ka helay, waayaan ku iri, waxay tiri way degan yihiin, waxay tiri macawijka isku yihiin ragga Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed. hadda waa gabar ka waran Turkiya oon xijaab lahayn oo jeans xiran oo Holland ku dhalatay ayaa waxay qeexaysaa waa aragnimadeedii. waxay tiri naftay kuu keenaya haddaad saxan bariisa usoo wado ma sugayso, aniga bay kule iyagoo wax cunaya xataa bariiskiisa usoo tufayaan. yacni waxay ka sheekaysay waxyaalo anigu aanan arko laakiin aanan ka sheegi karayn. waxay tiri ragga Soomaaliya waa rag fiican oo akhlaaq leh oo mutaadibiina oo afgaaban oo waad mahadsantay ku odhan markaad wax soo dhigto. ragga Soomaaliyeed baan ka helay bay tiri, dumarka Soomaaliyeed uma bogin bay tiri. taasi waa taa. suuq haddaad tagto gabadh Soomaaliyeed baa telefoon ku qaylinaysa oo xijaaban oo maasha Allah oo dumarka Soomaaliyeed waa qurux badan yihiin oo suuqa dhexdeedii bay kala dhex qaylinaysaa, keligeed baa dhex qaylinaysa, ama ilmo yar bay jiidaysaa ama telefoon bay dhegta keligeed ku haysa way qaylinaysa. xaafadaha haddaad soo gasho gabadh Soomaaliyeed baa ka dhex qaylinaysa telefoonka qaylinaysa. haddaad kaynta lagu wareegay lagu socdaa tagto telefoon bay ka dhex qaylinaysa dhegta ugu jira. wiigii hore may 2 wiig ka hor gabadh Eritreyaanada waa masiixiyad ayaa waxay igu tiri waxa aan la deganaa way cusubta wadanka cusubta 6 bilood bay meel joogta, waxaan guri Leyla geeyay bay tiri qol aan la deganaa gabadh Soomaaliyeed. waxay tiri telefoonka dhigi mayso, haddaad ku tiraahdo habeenkii walaal waa 1:00 waan seexanayaa. gabadha Eritreada Carabiga taqaana, waayo Eritreada iyo Suudaantu xuduud bay leeyihiin. talabaad Suudaan bay tagaan, Suudaantu dad iska soo dhaweyn fiican, shaqana way ka helaan hablahaas. Carabi fiican bay ku hadashaa oo fusxaday ku hadashaa. marka Carabi igu sheegaysa waxay tiri dadku tira 1:00 habeenimo walaal waan seexanayaa, aroorta waxaan leeyahay waan kacayaa telefoonka, naya gurigayga bax bay igu oranaysaa bay tiri, naya guriga waan deganay aniguna xaq waxay tiri dadka hashkiyo waxay tiri waxa la oranay ku dee 10 ka bacdi in telefoon lagu hadlo ma. waxaan ku waxaad sheegaysaa waa run waxaan ku telefoonka way ku qaylinayaan, haddaad u sheegtana way kula dagaalaan. waxay tiri waayo aniga igu leedahay waayo dumarkiinu maxay qaylo oo kaliya maahe muxuu dagaalka uga soo horeeyaa. marka waxaan ku yiri waa dabiicadda waa maaha waa kulaylaha iyo raashinkay cunaan iyo tarbiyad fiican aanay helin oo dowladda xun baa soo haysatay ilaa 60kii. marka qofkii ilaahay tarbiyad fiican uu qof u soo daray mooyaane ama jaarka ama waalidkiisa ama macallin wanaagsan mooyaane waa wada saasaan ku yiri, waa wada saa badankood. waxay igu tiri muxuu ahaay adigu Soomaali laba mirtii iyadoo kaliya maaha inta qof ay igu tiri Soomaali gabadh caddaan ilaa iyo goorma waa laba islaamood oo Ingiriis waa dhowr iyo 20 sano ka hor, dhowr iyo 10 sano ka hor magaalooyin kala duwan Soomaaliya ma la mitii. waxay igu tiri Soomaali waxaan ku anaha taa Soomaali dhabka anaa Soomaali dhaba waayo waxaan ku waxay igu tiri waa afkaaban tahay muxtarim baa tahay